gobollo badan oo dalkan Mareykanka ah waxaa ka bilowday codaynta hordhaca ee loo yaqaan early voting-ka kuwaas oo loogu tartamaya doorashooyinka golaha deegaanka ama city council-ka, maxkamadaha, iskuulada, xafiisyada duqa magaalooyinka iyo arrimo kale oo bulshada muhiim u ah. Columbusna xarunta codbixinta ee Franklin County ee ku taala wadada Morris Road waxaa la arkayay dad fara badan oo xaadiray halkaas si ay codkooda u dhiibtaan. Soomaalida oo qayb ka ah dadkaas waxa ay codkooda siinayeen musharax Farxaan Jeyte oo u tartamaya ka mid noqoshada golaha deegaanka ee Columbus. Waxa ay sheegeen qaar ka mid ah dadkaas oo aan la kulanay inay codkooda siinayaan Farxaan Jeyte si Soomaalidu ay qayb uga noqoto goobaha go'aanada looga gaarayo arrimo fara badan oo saameyn ku leh nolosha iyo mustaqbalka bulshooyinka kala duwan. Musharax Farxaan Jeyte oo isaguna ku sugnaa goobta ayaa sheegay in la gaaray xilliga ay Soomaalidu qayb ka noqon lahayd isla markaana ay fariisan lahayd miiska go'aanada iyo wax kala goosiga bulshooyinka ee golaha deegaanka ee magaalada Columbus. Goobta codbixinta ayaa waxaa ka muuqday astaamaha tartanka Mr. Farxaan Jeyte oo ay ka mid yihiin funaanada lagu xardhay sawirka Farxaan Jeyte oo dhalinyaradu ay xiran yihiin. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Anigoo ah Daahir Shire Warsame waxaan ka codeeyay early vote-ka meesha codku ka socdo doorashada Farxaan Jeyte. Codkayga waan dhiibtay. Waxaan ugu baaqahayaa aan gaarsiinahayaa aan u soo jeedinahayaa shacabka Soomaaliyeed ee Columbus rag iyo dumarba qof kasta oo woodi kara inuu codeeyo loo codeeyo la doorto Farxaan Jeyte si aan u helo qof nagu matala dawladda hoose ama sidhiga Columbus. ومهتسنتي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa mahad iyo ammaan iska leh Allah koonka sameeyay ee dhamaanteeba naga dhigay kuwa mid ah Soomaali ah dadweynaha Columbus ah sabaha maanta halkan u taaganahay waxay tahay markii ugu horeysay in aan u codeeyo wiilka da'da yar ee Farxaan Jeyte oo u tartamayo inuu ordayo city council-ka gobolka Columbus Ohio. Columbus waxaan rajaynayaa waa ninkii saddexaad ee Soomaali community ay soo saarto qofkii saddexaad ee tartan galo waxaan ku weynahay dhammaan walaalaha Soomaaliyeed iyo cid kasta oo aan Soomaali ahayn ee Muslim ah meel kasta aad joogtaan inaad ka soo qayb gashaan una codeysaan Farxaan Jeyte oo run ahaantii aan aqoon dheeraada aan u leeyahay annaguna wuxuu galay wuxuu gudo aan u baahannahay nin luuqadeena yaqaano dhaqankeena yaqaano diinteena yaqaano in uu noo noqdo hoggaan deegaanka dawladaha hoose ee city council-ka. Bismillah. ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Columbus Ohio. maanta halkan waxaan u joognaa taageeridda walaalkeen Farxaan Jeyte oo u ordahaya city council. waa noo muhiim inaan taageerno Soomaaliya ee Farxaan. waxaa hore loo yiri nin walaalkii ii heeli yiri hoog Allah baday waa wax waajib nagu wada ah kulligeen dhamaanteen inaan Farxaan aan u codeeno iyo inta kale oo sharaxan iyo inta imaan doontaba iyo inta hore u joogtaba waxa weeyaan waa inaan isku helana hadaan nahay Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Anigoo ah Caldoof Diriye Ciise waxaan maantay u soo baxay inaan u foodgareeyo Farxaan Jeyte. Soomaalida Columbus degan oo qiyaastii ku dhow 100,000 waxaa moodaa inaysan foodka isan aqoon ama aysan shuqulba ku lahayn. waxaan ugu baaqayaa inay u soo baxaan walaalkood qof kale oo ajnabi ah la tartamaya qof kale oo Soomaaliya lama tartamaya soo baxa qabiilkiina dumiyana iska daaya oo Soomaalinimo ku imaado walaalkiin codka siiya. Bismillah alxamdulillah Soomaaliya ay meel joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaan joognaa goobtii doorashada early vote-kii baa furmay wuxuu bilowday maanta oo ay tahay October 11 2023 waxaana loo codeynayaa Mr. Farxaan Jeyte oo u ordaya city council golaha deegaanka. hadda waan codeynay dad badan oo Soomaaliya ma sha Allah maanta waa soo baxeen intiina maqana waxaan sugaynaa inaad soo baxdaan codeysaan ka qayb qaadataan hooyo haddaad awoodtii haddaad aabbatii haddaad youth come out vote insha Allah soo baxa codeeya
ka qayb qaata waa sidaasaan idin leenahay soo dadaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I will vote for him so that he can come in, and then as he explained to me, God will give him the strength and the energy, wisdom, knowledge for him to come and then help all Africans, not only one side. 100%. Yeah. I'm saying that on record. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Cabdi Aadan waxaan joogaa meesha codaynta maanta waxaan rabnaa qof kasta oo Soomaali ah waxaan ka codsanaynaa inuu soo baxo codeeyo oo codkiisa siiyo Farxaan Jeyte oo u cararaya City Councilka magaaladan Columbus Ohio waxaad ogtihiin sanadihii dambe oo dhan dad baan dooranaynaa Soomaaliyeed waa kulli baan horumar baan ka samaynay City Councilka cid noo joogta male waxaan rabnaa qof kasta oo Soomaali ah maanta inuu soo baxo oo codkiisa siiyo Farxaan Jeyte nin dhalinyaro aqoon-yahana wax badan ka fahamsan magaaladan insha Allah soo baxa hala garab istaago codeeya hooyada rabta wiilkeeda ama gabadheeda bari in loo codeeyo maanta intay soo baxda Farxaan Jeyte u codeyso aabaha raba sidoo kale wiilkiisa in loo codeeyo maanta halkaana looga baahan yahay bari cid warka dhageysanaysa male halka hala yimaado hala codeeyo hala garab istaago wiilka dhalinyarada aad iyo aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum aad baan marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad uga mahadcelinayaa dadkii Soomaaliyeed ee saaka soo baxay si ugu codeeyaan walaalkeen Farxaan Jeyte haddaba waxaa xusuusin mudan maanta oo ay taariikhdu tahay bishii October 11keeda 2023 waxaa bilowday codeyntii waxaanu joognaa hadda goobtii laga codeynayay ee ku taalay Morris Road runtii aad bay farxad gelisay dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale ee codeynaya waliba walaalkeen Farxaan Jeyte u codeynaya waxaan marka jeclaan lahayn qof kasta oo ku nool magaalada Columbus iyo nawaaxigeeda fadlan yuusan sugin maalinta ugu dambaysa doorashada oo ah November 7-deeda inta ka horeysa waxaan uga baahanahay qof waliba inuu halkaan yimaado galabta waxay halkaan furnaan doontaa insha Allah ilaa iyo 5 galabnimo marka inta ka horeysa adigu imaw familigaaga keen saaxiibada keen cid waliba oo maanta codeyn ka insha Allah waa loo baahan yahay aad baan idin salaamay assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu waa odagay aadan Shimberleys ahaa maanta waxaan taaganahay goobtii codbixinta waa early voting baa maanta bilowday waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed fayl ma jiro waa ognahay faylka dadku necab yihiin wax fayl ma jirto 2 daqiiqo idin ku qaadanaysa oo qura marka waxaanu leenahay soo baxa kale codeeya garab istaaga walaalkiin qof kasta oo Soomaali oo tartamahay in la garab istaago la soo saaro waa muhiim marka waxaan leeyahay saaxiibayaal laakiin guryaha ka soo baxa gabdho badan baanu aragnaa ragga waxooga waxaad moodaa wali waa kind of slow marka waxaan leenahay soo baxa kale assalaamu calaykum waxaad u jeegdaan in community in wada garab taagan yihiin meesha waxaa loo baahan yahay kaliya in la isgada garab istaago Soomaali kaliya ma waxna garab taagan waxa hadda aan ka nimid ama noo yimid dadka ka yimid Catholic waxay noo garab taagan inay codna siiyaan sababtoo anagu waxaan aaminsanahay qofka bini'aadankan in markay noqoto abortion ko kale in nafta la badbaadiyo qofka bini'aadanka dib uu gali karaa marka taageeraas waxaan ka helnaa dad gaala ah oo waxay u arkaan anakii inaan badbaadiyaal aan nahay anakiiba garab naga dhiganayaan haddaan nahay Soomaali magaaladan waqti badan baan ku horeysnayn magaaladan dad badan ba markaas aan kaliya codka inaan siino oo kaliya ku jirnay heer hadda waxaan sanaa fursad qalin hortaalo oo anaku aan goosan karno murqeena waxaan u baahanay fursadii waa hadeer maanta inoo bilaabatay waxaan ku baraarujinaynaa marabna hooyo aabi kale inoo yimaadaan in ay familka bugaariga buuxa ay baarkin ka yimaadaan codkooda dhiibtaan waa American weeye markaasna aan guusha wada gaarayna insha Allah si wada jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta maxaa noo bilowday early voting-ka maanta maxaan joognaa meeshay early voting-ka u jeedin maxaana taageeraynaa Farxaan Jeyte oo u cararaya City Council insha Allah maxaa ni sheegaynaa kulli Soomaalida hal soo wada baxo hal wada imaado ilaa doorashada maxay soconaysaa November 7 saa u helna representation qofna matalo oo City Council tago oo danaheena iyo anaga noo daneeyo insha Allah marka hal imaado right haddaa rabtiin wax kasta oo niga caawin karno waa niga caawinaynaa saan Farxaan ku soo saarno marka insha Allah nala soo xiriira ilaa November 7 maanta bilaabatay doorashada ilaa November 7 ay soconaysaa insha Allah xooga halis wada saaro hala soo wada baxo Farxaan Jeyte hala taageero السلام عليكم هاي وأنا والسلامي ما أنتوا حاجة جوجنا ماشي عدينتا بدن كسولة بحني كدن كام وعدية فرحان جيته
maanta bilaawatay aan ilaa waxay soconaysaa November 7 marka waa u baahanay codeyntiina come vote for him guys waa u baahanay wiil Soomaali in office-ka noo galo iskuulahan wax kasta so be out here inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين المقعي هو عبدولي حوش وحن مانت هالكانوا إمد إنا نوعديو ولالكي فرحان شيتي وأترتمي سيري كونسل كا كولومبوس ووعدي ما شاء الله ومد بدن الصوماليين نوات مدوعدي سي وحرجيننا ومد كله الصوماليات دقن كولومبوس أما فرانكلين كاوني إنتي canshuurta Columbus tahay booliiskuna yahay Columbus inay u codayn karaan saan cod ugu yeelano city council-ka oo ah meesha laga xukumo magaalada wax walba laga dejiyo sharci haday noqoto booliiska haday noqoto meesha laga xukumo ay tahay inaan cod ku yeelano maanta waa laga maarmaan Soomaaliyeey soo baxa u codeeya ninkaas maanta waa Janice fiican buu leeyahay ma sha Allah. iskuulada Horizon waxa ay kamid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal 4 xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo 2 kuwa sare ah waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysay ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sareeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeena Robert School waa hal abuur ka dheeraada fasalada deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadayo ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa college-kana iyagoo jooga dugsiga sare waxaan helay dhibcaha college-ka ka hor inta aanan aadin college-ka runtii waa fursad muhiim ah inaad hesho shahaadadaada college-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare waa wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college-ka waxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimayo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylisadooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin Horizon macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus